axmed daahir cabdikariin nuur wariyaheena haddaba haaruun macruuf ayuuna khadka telefoonka ugu warramay. waa markii ugu horreysay ee sidaas burburku u dhacay ama Soomaaliya ay Libiya iyo khadadkaas dhinacaas ugu soo gudbaysay saraakiil ka tirsan dawladda ay timaado intana awalba safiir laguma lahayn jaarto Afrika waa jooga oo runtii rag dadaal badan iyo tininka kaalmo oo meesha jooga ay tahay marka bal inaan hal ilaa 20 qof oo dadka dib ku galay aan la sheekaysano oo xogta helna ayagii laftigooda gacanta koobaad waa qodobka koobaad qodobka labaadna waxay ahayd in hay-adaha arrintan gacanta naga siinayo oo la diyaara 1,000 iyo 2,000 iyo 3,000 qof kastoo Soomaaliya ay noqonaya waa IOM-ta iyo UNHCR inaan la kulanno keli annaga iyo ayaguna wada kulanno ayadana waanu samaynay waa midda saddexaad ee dad yar baa xaafadaha iyo magaalooyinka jooga ee dadka intooda badan magafayaal baa haysta looma laha aragti iyo meel la gaari kara maaha laakiin qaybta kale oo labaad oo majority-ga waa dadka xiriyaha dawladdu maamusho ku jira inaan dawladda Libiya authority-gooda aragno ayagina waan aragnay oo u qaybsanayaasha arrimaha Carabta iyo arrimaha Afrika oo arrintu aad u khusayso yaan maanta aragnay marka qiimeynta xaaladda iyo cidda ay ku xiran tahay inay dadkan nagu gacansiiso sidaan u celin lahayd inaan la kulanno isku xirno qaab wada shaqayn oo nidaamsan oo structure leh oo ilaa maanta ninka madaxda u ah IOM-ta Libiya aanu safaaradda wada tagnay xafiis aan ka abuurno dad ka mid ah hay-adooda uu meeshan saldhigga keeno dadkeena laftigooda loogu tababaro meel qofku inta yimaado informationka ku heli karo lagu diiwaangelin karo lagala xiriiri karo dawladda Libiya sidaasna inay baxaan lagu saacidi karo qaybta kaleeta oo aan u nimid waa isku xirka maaha hay-aduhu kuwan kaliya kuwa Soomaaliya sidaas bay xiriirka qayb uga yihiin qof kastoo laabta 6 bilood oo soo socota baxaa la siin karaa sida dhadhaab dadka ka yimaada ama kuwa ka yimaada Libiya Yemen ka yimaada ayagana isku xirnaanta hay-adaha IOM-ta UNHCR inta iyo kuwa Soomaaliya isku xirkaas baa runtii iyo xog noqoshadaas baa muhiimada koobaad ah waaye su-aasha la isweydiin karo dad badan ay isweydiinayaan waxa weeyaan dadka Soomaalida ee Libiya tahriibka ku imanaya ee doonaya inay meelo kale uga sii gudbaan rajada u soo ordayaan iyo duruufta ka jirta maxaad ku soo aragteen meesha waaye dhowr qaybood oo midda u horeysa aan caqliga bini'aadamku ogolayn ayaa horta mixnad u ah maxay tahay war qofkan Soomaaliya intuu ka soo baxay Ethiopia soo maray Suudaan soo maray Libiya dhexdeeda soo maraya inuu nolol inta ku soo gaaraya lama hubo hadduu soo gaarana 3 jeer ayadoo sidii xoolihii la kala iibsaday la jir dilay caafimaadkiisa nafaqadiisa iyo sharaftiisa dhamaatay ayuu horta inta imaanaya waa qodobka horeeya waa jidka qodobka labaad Yurub go'aan bay gaartay niman caloosho shaqaystayaal oo qaybihii immigrationka la shaqeynayo coast guard sharciyada looga dhigay laakiin kambaniyaal ah ayaa laga hawlgeliyay waa la xiray badii idina uma gudbi karto waa qofkii taga intiisa badan ama waa ku dhimanaya ama xuduudaaba laga qabanaya waa qodobka labaad qodobka saddexaad oo yar oo optionka ah wuxuu yahay Niger baa waxa laga furay xerooyin UNHCR ay maamusho oo dadkii loo arko inay isdiiwaan geliyeen oo markii ay bixi lahaayeen la qabto oo waliba Soomaalidu ilaa 6 wadan kaliya waaye ay ka mid tahay ayaa loo gudbinayaa xeradaasi qorshahooda dhan waxa suurtagal ah 40 iyo dhowr kun baa hadda qaabkaas ku jira kun qiyaastii 2% wax ka yar ayaa laga yaabaa sanadkiiba inay Yurub u gudbiyaan inta ka horeysa waxay abid ahaan doonaan xoolo ku xiran Niger oo meeshaas kaam kale lagu sii hayo marka intana kuma noolo familiyadoodii bay ama biil iyo dadkii soo dirayaan oo maalin walbaaba magafa haysta oo inkaar qaba oo wax aqligu ogol yahay wuxuu ku sameynaya aan la garan karin meel kale oo u sii gudbayna ma jiro iyo shaqo iyo camal iyo waxbarasho ee dadku waxa waaye waa dad dhintay sharaf iyo nololba
dadka marka dhibaatadaa soo maray oo noloshoodu halista ku sugan tahay maxaa ku kalifay haddana qaarkood inay dhaxaan ma laabanayno? arrinta ugu muhiimsan horta waxay tahay waxa yaab leh tira ahaan 12 qof baa hadda rajaynaynaa asbuucan dhammaadkiisa inaan celino ma hordhacaya markaan geyno ilaahay idinkiisa ayaan ogaan doonaa si ay bal furo u noqoto laakiin markaan hal u waraysanay qofkani hadduu dumar yahayna de sidii ay uga soo tagtayba ma aha oo dhimashay ka xigtaa inay dadkeedii ehelkeedii kuwa noqoto markay dariiqay soo martay iyo dhibaatada la soo gudboonaatay la arko hadduu nin raga yahayna horta intooda badan 90% waaba ama 99 waxaan dhihi karaa waa dhalinyaro waa dad xoogan waa dhalinyaro ah qoysas iyo ilmo hal qoys oo laga yaabo inay beri damana raacaan ayaa suurtagala waa dad yar dadka ahayna wax uurle ama wax meeshan ku dhalay oo iska kooban maana dadkoodii bay waxay ku leeyihiin soo khasaarinay 20,000 baa igu baxay waji aan la hortaga maba haysto marka horena way soo dhuunteen marka niyadii baa traumatized wax la yiraahdo waxay u baahan yihiin counseling wax la yiraahdo wacyigelin maskax ka dhaqid waanin war dadkii inay noolaadaan oo ehelkoodii ku noqoteen oo hooyo aabba ku arkaan ayaa uga daran 10,000-20,000 oo ka khasaartay haddaad tirahdid weli maskaxdiisu ma qabo waa qodobka labaad been bay u sheegeen kuwii kaleeto oo gudbay oo calafkooda nasiibkoodu galay waxaa u muuqata talyaaniga oo waxaa la leeyahay anugu shalan mid doon kala timid rajo aan imaanayn oo laga taxadariyo Yurub ka tabaabushaystatay ayay u sii muuqdaan marka cuqdada nafsiyan ah oo qofku dhibkii iyo wuxuu ula soo tagay uusan la noqon karin iyo rajadaas beenta ah ee qofkii weli u soo muuqata nin xanuunsan oo lugihiisu gariirayaan wilyar oo gariirayaan oo sida jirkiisii dhammaaday ayaa wuxuusan ku dhiiran karin inuu yiraahdo haddaan niraahno war waa lagu saacidaya oo shaqa lagu abuuraya dhibaata Soomaaliya wax ka jirtay tan mid ka dhaantaa lagu sameynaya inuu yiraahdo hay'ad diyaar baan ahay insha Allah buu ku leeyahay ama waa arki doonaa waa gartay